Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Haddii aad kanaalka ku cusub tahay, fadlan subscribe noo saar. Waana ku faraxsanahay inaan gaarno toddobaadyada gudahooda 2000 oo kay. Aad iyo aad baad noogu mahadsan tahay saaxiib. Balse weli fari kama qodna faan oo leh. Ayay Soomaalidu odhan jirtay waan rajaynaynaa inaan subscribe intan ka sii badan aan helno. Waadna mahadsantihiin daawade. Balse maanta waxaan idila wadaagi doonaa qiso cajiib ah oo markaa daawato ka yaabin doonta. Adigaaga Soomaaliga ah aad ayay ku taaban doontaa, waayo waa qiso cajiib ah. Helen waxay ahayd gabadh aan haysan waxay cunto, balse waxay door biday inay meherad aado oo ay soo xado alaab. Helen waa gabadh lagu soo eedeeyay inay xaday supermarket. Markii uu gurigeeda tagay ay is arkeen William oo ahaa nin askari ah. Si uu soo xidho waxa uu ogaaday waxay Helen xaday inuu yahay 5 xabo oo kun ah. Cajiib. Waxay ku cudur daaratay inaynan 2 cisho waxba cunin, iyada iyo qoyskeedaba baahi darteedna ay u soo xaday beedkan. Waxa uu go'aansaday askarigii inuu xidhin, waxa uuna sameeyay taas lidkeeda. Waxa uu soo iibiyay salad ukun ah, kadibna gurigeeda ayuu ugu keenay. 2 cisho kadib waxaa soo noqday William iyo saaxiibkii wada 2 gaari oo ay ka soo buuxiyeen alaab cuntooyin deeq ah oo ay soo ururiyeen Helen iyo qoyskeeda. Helen ayaa ku tiri, mudane, ma aha inaad waxaas oo dhan aniga ii qabatid. Askarigii William waxa uu ku jawaabay, mararka qaar uma baahni xeer, waxaan u baahanahay bini'aadantinimo. Waa mowduuc short iyo gaaban. Mar dhaweyd ayaan arkay linkigiisa ayaa la soo diray isagoo qayb English iyo qayb Soomaali ah. Marka waxaan isku dayay inaan wada Soomaali ka dhigo si bulshada wax u gudbinay ay Soomaali tahay. Marka waa mowduuc cajiib ah. Waxaad ka dhaxlaysaa mowduuca in qof uu gargaaro ay la mid tahay adoo bulsho dhan caawiyay. Askarta mararka qaar askarta wadamada dawladda leh waxay ka naxariis badan tahay dadka shacbiyada kale. Waa cajiib. Kama dhici karto geeskan Afrikaan ku noolnahay in intuu qof xado hadalana waajibkiisu uu noqdo in isagii hadalana wax kale la siisiyo. Waxaa macquul ah in markiiba jeelka lagu tuurayo. Sababtoo ah taa aan u leeyahay waxa weeye wadamada aan ku noolnahay oo kale qaaradan Afrika, haddii aad meherad uu qof xado gaajoonaya, waxaa macquul ah in qofkaas intii la soo qabo walina dil loogu sii diro, jeelkana lagu tuuro. Lama weydiinayo sababta, balse William wuxuu weydiiyay sababay inaad 5 xabo oo kun soo xado. Waxay ugu jawaabtay gabadhii, waxaa sidaas oo dhan ugu wacan aniga iyo qoyskaygu muddo 3 beri ah waxba maanan cunin. Aad ayuu u yaabay. Sidii katiinadii intuu ka furay dib ayuu u laabtay. Waad ku mahadsan tahay daawashada mowduucan. Haddii aad jeceshahay mowduucyada kale inaad nala daawato, fadlan subscribe noo saar oo dadna ku cusub tahay. Fi amaanillah saaxiibayaal.